وعن أو نكسن داود يلا لهن تيمبا هل كان نقدر ونسوي واجنا الكسوم في صوماليا حرمت سدها مقالة مقدشو كسر داود الوروحي دليل دبد نجسو جاري أو سعدان وكلات كده وطن تيفيجا صوم في صوماليا شرق ده هي من عدود فدرال كصوماليا ما من قبل ده يقبل كبنادر أو ما أنت كفرمتين ده أفسيوني تلسكا إذا كحوق دلك صوماليا أو قول كشكل دجال كدعي شبيلها هوسه بوليسكا جبلان أو بلاوي دخن قلت أمريكا صباحي معمولك جبلان تركيا أو صوبندك إنك بدل ما بقول أو تهريب يلا دولة كينيا أو لقود دريليسك عس حيرات السعودالك دلك يوكي مدعونا دلك عجتين أو لقى لك كورونا فيروس أنت سويها يا قطب بدور كنا قدر كورونا هاتنا كسر وهذا سجي أوفتن فلان هذه أنا قصبت أجلك سبسكرايب نصر هذه ورا أنه لجوك نمتكم أستال جوجا فيديوجا لايك نصر وركن هذه وكنا فن وعرق طلع كرتا برت أنا كلنا فيسبوك انستغرام تويتر صوم في صوماليا تندا أفسيوني مقالة مقدشو أيها واحد وشير وقفر ما مدها دولة فدرالك صوماليا دولة قبل ده يقدميها قبل كبنادر شركا أو أحمد البابا وحريين أيها واحد ونقوني أحمد مركي وقور اسم مدعوين ياشا جبلان إيا بنتلان أيها فرستان مدعوين فرماجو يرسو ساديس الروبلة كتب سيدة طلبات أي كسوكنا هي مقالة مقدشو أجندا شركة ما أنت واحد وياي سيدة اللوغة يشيل لها أجندا شروينا ودا تشيك دور شوينكا وحنا شركة ما أنت سوق بقابية باشا عالمك وعلى سارتين عيدا شركة ما أنت وقفر ما تندى أفسيوني مقالة مقدشو مدعدا دولة فدرالكا دولة قبل ده يا قبل كبنادر أيها هردعوا شروينا وتشك دور شوينكا شلوغي شيو قلافك كتاغن دور شوينكا طليا إذا كدولك حوق دلك صوماليا جنرال محمد تهليل بيحي والله الله إذا مدى قلب كسيدا أيها شيء إذا كحوق دلك أي الشباب خسارة حوق نقارسيان دقال أي كولك قلين دقمدا أو دقلة iyo deegaanka bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose General Biixi ayaa tilmaamay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka hortageen weerar ay al-shabaab ku soo qaadeen saldhigyada ciidamada isla markaana xubno badan ay ka dileen sida baarihi xalay qafartii iyo barkii ay soo weerareen laba xero oo bariire iyo xero la yiraahdo Awdeegle runtii waa la filaynay oo diyaar garow badan baa ku jiray saaka kaamarada waa ku soo gudbin doona hadda arki lahayd meedkooda waran waadiyaal lahayd waxay isku dayeen inay xerada ku soo dhawaadaan laakiin nasiib wanaag aad baa loo jabiyay haddana wali waxaan ku jirnaa baacsigooda waxaan rajaynaynaa mar dambe inaysan ku soo khaldamin siday maanta u soo khaldameen ciidan Soomaaliyeed oo meel difaac uga jira taliye bal waxaad ka warbixisaa khasaaraha marka laga yimaado sida ciidamadu iskaga difaaceen runtii saacadda hadda aan kula hadlayo xabariiraan kala hadlayo dhex taaganahay Awdeeglana xogteeda anaa ku siinayo ayadana gacantaan ku haynaa si ciidamada naftoodurayaasha oo Soomaaliyeed oo har iyo habeenba u soo jeeda inay dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda difaacaan baa gacanta ku haya cadawgiina waa iska caabiyeen weliba caabin maahana waxay gaarsiiyeen khasaare aysan mar labaad u soo laabanayn nabadiidka al-shabaab waxay ku khaldayaan baraha bulshada ama shacabka Soomaaliyeed ee dhageysanaya ay u sheegayaan inay iyagu qabsadeen taas taliye maxaa ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynayaa video camera iga soo waca WhatsApp iga soo waxa ku tusaya xerada aan u dhex taagan oo difaaceedii uu sugan yahay oo aan wax cadow agaarkeeda imaan karin baa ku tusaya aad baad mahadsantahay Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ku qanca صح warka ay nabadgeedka iyo qurubku sheegayaan ama qaladina ku qarca warka mas'uuliyiintiina iyo ciidamadiina idin sheegayaan kale waxa uu sheegay generaalka in dagaalka al-shabaab looga dilay 45 xubnood oo tiro intaas ka badan oo dhaawac ay gaarsiiyeen walow aysan jirin warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada al-shabaab wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in deegaanadii lagu dagaalmay oo ka socdo howlgal uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage kaasi oo lagu baadagoobayo xubno ka tirsan al-shabaab
taliska ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland iyo maamulka degmada Kismaayo ayaa saaka bilaabay dhaqangelinta awaamirta lagu xakameynayo faafinta cudurka COVID-19 magaalada Kismaayo ayaa waxa maanta wadooyinka waaweyn iyo xaafadaha qaar laga arkay ciidamo ka tirsan booliska Jubbaland oo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan si ay u fuliyaan amar ka soo baxay madaxda sare ee Jubbaland ciidamada booliska magaalada Kismaayo oo saaka lagu soo daadiyay wadooyinka ayaa dadka aan xirnayn face mask afxirka weydiinaya iyaga oo dadka ku amraya inay qaataan face mask ama afxirka Jubbaland ayaa shalay ku dhawaaqday amara ay kamid ahaayeen in xiliyadii habeenkii magaalada Kismaayo bandow lagu soo rogay in qof walba soo xirto afxirka ama face mask qofkii amaradaas fulin waayena ay talaabo sharciga ka qaadi doonaan maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ku baday kiisaska cudurka COVID-19 waxaana hal maalin kaliya la diiwaan geliyay dhimashada ilaa 20 ruux ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Turkiga ayaa soo bandhigay 231 qof oo taariibayaal ah kuwaas oo ay dowladda Giriiga dib u soo celisay dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada xeebaha Giriiga ay qasab ku soo celiyeen doomiyay ay wataan taariibayaalkan doonaya in ay galaan qaaradda Yurub Turkigu waxay intaas ku daray in dadkii la soo badbaadiyay la geeyay goobaha loogu talagalay taariibayaalka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dowladda Turkiga ayaa horey u sheegay in dowladda Giriiga oo ku soo celisay 3 sano ee la soo dhaafay in ka badan 80,000 oo qofood kuwaas oo doonaya in ay galaan wadamada Yurub guddiga sare ee British oo loo yaqaan the British High Commission waxay ku wargeliyeen dowladda Kenya qorshaha lagu doonayo in Kenya loogu daro liiska cas ee socdaalka UK sabab la xiriira COVID-19 hadal qoraal ah oo ka soo baxay guddigaasi ayaa lagu muujiyay in go'aankaasi adag ay qaateen golaha wasiirada dalka Britain bishii la soo dhaafay ee March 31 kadib markii dib u eegis lagu sameeyay cadeymaha ugu dambeeyay ee khatarta bulshada ee isku gudbinta COVID-19 al-alisaan 500 oo qofood waxay toddobaad kasta ka dhoofaan dalka Kenya iyagoo ku sii jeeda dalka Britain balse laga bilaabo bishan April 9 oo ku beegan Jimcaha soo socda waxa Kenya lagu daray liiska cas ee xayiraadda safarka UK the UK travel ban red list talaabadan ayaa timid kadib markii saldhigga ciidanka UK ku leeyihiin deegaanka Nanyuka dhawaan la geliyay karantiil kadib cabsi laga qabo in ciidanka dhawaan tagay Kenya ay qaadi karaan nooca cusub ee fayruska warkii aad kala socota TV-ga caalamiga ah ee Som TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waa inageenta warka waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabduqaadir Xasan Cali Nabadino